muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay waxa loo yaqaano adenoids oo ah hilibka ku samaysan sanka kaasoo inta badan lagu arko carruurta ayaan ka hadli doonaa insha Allah. inta aan u gudgalin muuqaalkeena waxaan si gaar ah kaga codsanayaa inaad YouTube channelkeena subscribe noo saarto, Facebook page-keena follow aa soo tiraahdo insha Allah. haddii aad su'aal qabto qaybta hoos comment-ga nagu dhaf oo kuu soo jawaabi doonaa insha Allah. haddaba waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo, carruurtaada ma ku aragtay cabur sanka ah in ay carruurta ka neefsadaan afka, khuuriyo, hurdada inay ka soo kacaan iyagoo aan hurdada dhameysan, caabuqyo soo laabto oo ku dhaco dhuunta? sidoo kale carruurtaada ma ku aragtaa caabuq ku dhaco dhagaha? haddaba calaamadahaas oo dhan waxay noo qeexayaan inay jirto waxa loo yaqaano adenoid inflammation oo ah inuu caabuq ku dhaco qanjirka ku yaalo qaybta kore ee afka ama qaybta gadaal ee sankaas oo loo yaqaano adenoids. adenoids waa qanjiro ka mid ah qanjirada jirka bini'aadamka, waxayna ka qayb qaataan habdhiska difaaca jirka ayay ka qayb qaataan. qanjiradaasi waxay ku yaalaan halka ay iska galaan qaybta sare ee afka iyo qaybta gadaal ee sanka ayay ku yaalaan. qanjiradaasi markay uwadka dhashaan waxay bilaabaan inay sii weynaadaan ayay bilaabaan ilaa uwadka ama carruurta ka gaaraan da'da 6 sano. markay carruurta gaaraan da'da 10 sano jirka ilaa 11 sano jirka, qanjirkaasi wuxuu bilaabaa inuu sii yaraado ayuu bilaabaa. marka carruurta ay gaaraan 20 sano waxaa dhacda gabi ahaanba in qanjirkaasi yaraado ayaa dhacdo. haddaba dhibaatada waxay timaadaa marka qanjirkan uu ku dhaco caabuq ama wax loo yaqaan inflammation. marka qanjirkan ku dhaco caabuq waxaa dhacdo in qanjirkii uu bararo ayaa dhacdo oo barar aad u badan sameeyo. qanjirka markuu barar kadib waxaa dhacdo tubada hawo-mareenka ee sanka inay xiranto ayaa dhacda. marka inay xirantan waxay ku xiran tahay carruurtu ay kala duwanaan karaan. carruurta qaar tubooyinkoodu waa waaweyn yihiin halka carruurta qaar tubooyinkoodu aad u yar yihiin. marka carruurta tubadaas ay aad u yar yihiin waxaa dhacayso in sanka oo cabar ku yimaado ama sanka u xirmo ayaa dhacayso. marka caabuqyada ugu badan ee sababo in qanjirkaas barar waxaa ka mid ah caabuq ku dhaco dhuunta kaas oo loo yaqaano tonsillitis, ama caabuqyada ku dhaco qeybaha kale ee madaxa kuwaas oo loo yaqaano sinusitis iyo rhinitis. waxay sababi karaan inuu qanjirkan barar ku yimaado. sidoo kale in qanjirkan barar ku yimaado waxaa sababto xasaasiyada ku dhacdo qaybta sare ee neef-mareenka. calaamada ugu badan ee lagu arko carruurta qabto xaaladan waa in ay sanka ka xirmaan ama sanka cabur ku yimaado. haddii uu marka sanka cabur ku yimaado waxaa imaanayso in ubadkii uu afka ka neefsado. afka markuu ka neefsado kadib waxaa imaanaysa in carruurtii uu khuuriyo sameeyo ama markuu hurdaayo inuu khuuriyo sameeyo ayaa dhacayso. sidoo kale in carruurta afka ka neefsato waxay caqabad ku noqon kartaa qaadashada cunada ama naasnuujinta ayaa caqabad ku noqon kartaa. ugu dambeyn waxaa ka dhalanaysa marka in carruurta koriinkooda aad u yaraado ayaa ka dhalanaysa. marka haddii uu sanka xirmo carruurta ay afka ka neefsanayaan, afka cuno ma laga siin karo oo dhibaato ayay keenaysaa. waxaa laga yaabaa haddii aad afka naaska nuujiso inuu naaski soo tufo oo naqas u baahdo oo neef u baahdo ay dhacayso. taasna ugu dambeyn waxay sababaysaa marka in koriinka ubadka yaraado ayay sababaysaa. marka dhibaatada ugu badan ee carruurta la kulmaan, carruurta xaaladan qabto ee la kulmaan waa sanka inuu xirmo. hadda cuno qaadashada iyo haba qaadashadan afka kama wada dhici karaan. waxaa dhacaysa marka in cuno qaadashadii ay yaraato ayaa dhacayso. ugu dambeynna waxay ku dhammaanaysaa xaaladaas in carruurta koriinkooda aad u yaraado ayay ku dhammaanaysaa. haddaba carruurta markay qabta xaaladan maxaa u samaynaysaa? guriga aad joogtaa, carruurtaada waxay qabtaa barar ku yimaado qanjirkan oo sankii ayaa xiran, maxaa u samaynaysaa? waxyaabo waxaa jiro aad u samayn karto carruurtaada. waxyaabo guriga aad ka heli karta ayaa kamid ah kuwaas oo yareynaya caabuq. waxaa kamid ah toonta ayaa kamid ah. sidee u siinaysaa marka? toonta way kulushahay, wayna ur badan tahay. marka sidee u siinaysaa carruurta? marka qaar waxaa laga yaabaa inay kaa diidaan. marka hore waxaad samaynaysaa 2 xabo toon ah ayaad shiidaysaa. markaad shiido kadib waxaad ku daraysaa malab iyo cabitaan liin ayaad ku daraysaa. kadib waad siinaysaa maalintii 2 mar ilaa 3 mar ayaad siinaysaa. marka hore waxaad shiidaysaa 2 xabo toon ah oo waxaad ku daraysaa qaando malab ayaad ku daraysaa iyo half koob biyo liin ah ayaad ku daraysaa ama koob halfkiis koob kala barkiis oo biyo liin ah ayaad ku daraysaa. sidoo kale waxaa wanaagsan ama carruurta haddii xaaladan qabaan waxaa wanaagsan inaad siiso malabka. carruurta haddii aad siiso si maalinla ah malabka wuxuu leeyahay awood uu kula dagaalamo caabuqa. sidoo kale wuxuu leeyahay awood uu kula dagaalamo bakteeriyada.